dalka Israa'iil ayaa noqday dalkii koobaad ee si rasmi ah ugu dhawaaqa aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland. Shir jaraa'id oo uu qabtay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayuu maanta si rasmi ah ugu xaqiijiyay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan. I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. Arrintan ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland la saxiixdeen bayaan wada jir ah oo laba dhinac ah. Bayaankan ayaa ku salaysnaa heshiiska ruuxiga ah ee Abraham Accord oo lagu saxeexay hindisaha madaxweyne Trump sanadkii 2020 kaas oo ay qayb ka yihiin dalal badan oo ka tirsan bariga dhexe oo ay ka mid yihiin Qatar, Imaaraadka iyo Bahrain. ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa u hambaliyay madaxweynaha Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro isla markaasina bogaadiyay hogaamintiisa iyo sida ay uga go'an tahay xasiloonida waddankiisa isla markaasina uu gaadho aqoonsi rasmi ah. hadal dhexmaray labada hogaamiye ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil uu marti qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland inuu booqasho rasmi ah ku tago waddanka Israa'iil taas oo noqonaysa tii koobaad ee madaxweyne ka tirsan Somaliland uu ku tago waddankaasi. I want to use this opportunity, sir, to invite you to an official visit to Israel at your convenience, and I hope very much to see you here soon. dhanka Somaliland madaxweyne Ciro ayaa u mahad celiyay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Mr. Netanyahu waxaana uu ku tilmaamay bayaankaasi mid taariikhi ah. waxa uu sidoo kale bogaadiyay dadaalka ra'iisul wasaaraha ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta nabadda ee gobolka. The big five is here. The other group is the chairman of the party and the vice president. And King of Israel are here. Mr. Prime Minister, I accepted the invitation and I am ready as soon as possible for that arrangement that can be made. dhanka Israa'iil ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale u mahad celiyay wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo madax ka tirsan Mossad oo ka mid ahaa raggii ugu horeeyay ee ka shaqeeyay arrimahan wuxuuna shacabka Somaliland u rajiyay guul iyo barwaaqo inay ku gaaraan xorriyaddooda. dowladda Israa'iil ayaa qorsheynaysa inay si degdeg ah u ballaariso xiriirka ay leedahay Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo oo la sameynayo iskaashi ballaaran oo ku saabsan beeraha, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha sida lagu yiri war saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib markii ay ku dhawaaqeen bayaanka heshiiska Abraham Accord. Expanding our partnership, we intend to work together with you on economic fields, on agriculture, in the fields of social development, all the things that we hope we can assist you, and we obviously believe in this friendship. arrintan waxay Somaliland iyo shacabkeeda u tahay guul ay gaadheen waana taariikhda markii ugu horeysay ee dal madax bannaan uu si rasmi ah u aqoonsado Jamhuuriyadda Somaliland. Israa'iilna waxay ka mid ahayd dalalka laga filayay arrintan. dhanka kale arrintan waxay walaac weyn ku tahay Soomaaliya waxaana madaxweyne Xasan Sheekh uu maanta isugu yeedhay dhammaanba golihiisa wasiirada. saacadaha soo socda waxaa la filayaa in Somaliland ay ka bilaabmaan dabaaldegyo xooggan oo la xidhiidha bogaadinta aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil.